بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال مالك استوذ كتشوكتان دافها دونك. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وبكماله وبعظيم سلطانه. ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى أيام هدله inagu simay oo ina soo gaarsiiya iyo ayaamahan khayrka badan, bishan khayrka badan oo Allah subhanahu wa ta'ala fadligiisa aynu ku soo gaarnay. walaalayaal waxaynu soo gaarnay ugu horeyn waqtiyadii aynu sida gaarka iskugu sii baraarujin jirnay badinta saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ee aynu nabiga sallallahu alayhi wasallam u salaami jirnay sidan: as-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya rasulullah. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. ولا ليرسده الله سلام النبي عليه الصلاة والسلام. markastoo aynu soo gaarnay galab kastoo khamiisa, habeen kastoo jimcaha iyo maalinka jimcaha, ilaa aynu ka gaarayno marka ay qorraxdu dhacdo salaada maghrib, habeenka sabtida ay soo geliso insha Allah ta'ala. khayr badan ayaad insha Allah ta'ala kala kulmi doontaan. waa waqtiyadii nabiga alayhi salaatu wasalaam uu ina faray sida gaarka in loo sii badiyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam habeenka jimcuhu. walaalayaal aad iyo aad looga faa'iideysto. sidoo kale yaan la moogaanin inaynu ka faa'iideysano inta aynu soomanahay ducada, oo Allah subhanahu wa ta'ala ducadeena wuu aqbalayaa oo ducadaada lama soo celinayo. walaalaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay Allah subhanahu wa ta'ala ay baryaan dabadeetana ay yiraahdaan wixii aad Ilaahay barideen weli miidan helin, miyidi ka raagtay. walaalayaal waxaad ku bishaaraysataan ducadu saddex nooc mid ku noqonaysa biidnillaahi ta'ala. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ka xishooda, waa kariim. adoonkiisu markuu gacmaha u taago si ikhlaas lillaahi iyo markuu adoonkiisu u baryo, Allah subhanahu wa ta'ala wuu ka xishooda adoonkaas inuu faramadan ku soo celiyo. sidaa awgeed walaalayaal ducadaadu saddex mid bay ku noqon: in markiiba wixii aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dalbatay lagu siiyo, waana xal la yiraahdaa ducada midda ugu yar xagga qiimahan darajahan ugu yar hooseysa. waxa kale ducadaadu ay noqon kartaa in masiibo kugu dhaci lahayd oo Allah subhanahu wa ta'ala baryadaadaasi uu kaaga xijaabo, oo masiibo weyn ku gaari lahayd ama Ilaahay ka badbaadiyo subhanahu wa ta'ala, ama wax yar fudud turaanturo iyo murqacasho iyo hargab iyo waxyaabo noocaas ah, wax yar basiida ay ku noqoto oo masiibadii weyneed Allah subhanahu wa ta'ala uu kaaga badbaadiyo ducadaasi. waayo qadarka Ilaahay ku qoray subhanahu wa ta'ala waxa ka baajin kara oo kaliya waa baryada Ilaahay subhanahu wa ta'ala. ad Ilaahay ka magan gasho wax kasta oo shar la sharkiisa, aad Ilaahay weydiisato wax kasta oo khayr la khayrkiisa. walaalayaal markaas ducadu waqtiyada ay aad u fiican tahay in qofku ducaysto waxa kamida marka uu sooman yahay ilaa aad ka afurayso, ducadaadu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma soo celinayo. marka waxaanu sheegnay ducada inay noqonayso in Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga yaabo in markiiba lagu siiyo wixii aad dalbatay, ama in masiibo lagaaga xijaabo, ama in lagu dibdhigo oo waxaad Ilaahay khayrkaad weydiisanayso aad aragto waqti kale oo aad uga dhibaato badan tahay. waayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga og mustaqbalkeena waxa nagu dhici doona. saas awgeed ama waqti dambe oo aakhira ah ama waqti dambe adduunyada kamidaba oo dhibaatada ku qabsanayso in lagu dibdhigo, marka ama waa lagu dibdhigi, ama masiibo lagaaga xijaabi, ama Allah subhanahu wa ta'ala wuu ku siin wixii aad dalbato. saas awgeed walaalayaal ha ka daalina inaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad baridaan. markastoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala aynu barino, Ilaahay wuu ina jeclaanayaa. laakiin markastoo makhluuqa aynu wax weydiisano, makhluuqu way xanaaqayaan, way cadhoonayaan, way ina nacayaan, ihtimaamna inama siinayaan. saas awgeed walaalayaal ka kaaftooma baryada makhluuqa. dhib kasta oo ku haysata iyo wax kasta oo aad doonayso, khaaliqa gacmaha hoos dhigo, Allah subhanahu wa ta'ala toos ula xiriir
waayo allah subxaanahu watacaala mar kasta waa rafiiqeena oo inagama maqna allah subxaanahu watacaala wuxuu inagu eegayaa isagoo aamusan buu eegayaa calmalada aynu samaynayno malaa'ig baa qoraysa wax kastaynu ku hadalno iyagoo aamusan bayna eegayaan waxaynu samaynayno walaalayaal aad iyo aad waxa u qiimo badan inaynu allah subxaanahu watacaala ka xishoonno inaynu allah subxaanahu watacaala ka xishoonno aad iyo aad ayay munaasib u tahay inaad isdareensiiso oo shucuurta aad qaadato inaad rabbigaa ka xishooto waayo meel walba aad joogto ilaahay subxaanahu watacaala waa ku daalacanaya waana ku arkaya markhaatiyaal ayaa ku ag jooga gacmahaaga kugu markhaati furi doona indhahaaga kugu markhaati furi doona carabkaaga kugu markhaati furi doona dhegahaaga kugu markhaati furi doona cagahaaga kugu markhaati furi doona dhammaan xubnaha jidhkaaga markhaati kugu noqon doona saas awgeed walaalayaal mar walba inaad ka xishooto allah subxaanahu watacaala oo aad ka gaabsato waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala inoo diiday walaalayaal sidoo kale walaalaha ahlu dikrigow waxaad ku bishaaraysataan nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey ee waqtigii asxaabta nimankii reer miyiga ah ay weydiiyeen ay yidhaahdeen yaa rasuulallah shareecada islaamku way nagu farabadataye noo sheeg wax aanu ku dhegno nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu hi laa yasaalu lisaanaka radban can dikrillaah carabkaaga yuu ka suulin inuu ka qoyanaado dikriga ilaahay saas awgeed baa walaalayaal dikriga badan ee aynu isfarayno sida ilaahayba subxaanahu watacaala uu leeyahay wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat ee uu ilaahay subxaanahu watacaala u dabadhigay jannooyinka iyo nimcooyinka u diyaariyey ayaa ay mudan tahay in ilaahay subxaanahu watacaala loo xuso haddaynu allah subxaanahu watacaala xusi weyno carabkeenna iyo qalbigeenna iyo waxaanu ku mashquulinaa wax kale oo ilaahay khayrkiya amba xanbaad ku mashquuli ama siyaasad baad ku mashquuli ama ciyaaro laga sheekeed ku mashquuli ama bini aadam laga sheekeed ku mashquuli ama materialisti baad noqoniyo shayada materiaalka baa kula weynaan doona markaasaad ku mashquuli doontaa saas ogeed walaalayaal allah subxaanahu watacaala inuu qalbigeennu ku weynaado oo aynu ilaahay subxaanahu watacaala jeclaano oo aynu ilaahay ka u jecel yahay ee xabiibkiisa ah oo ah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo eelebeedkiisa aynu jeclaano oo dadka eelu khayrka aynu jeclaano oo aynu dikriga badino waa furaha najaaxa guusheenna iyo sacaadadeenna iyo xasiloonnideenna waxaa laga yaabaa walaalayaal imtixaan mararka qaarkood inaad marayso imtixaankaas oo allah subxaanahu watacaala uu kugu qiimeynayo bal inaad xagga makhluuqa u orodo iyo inaad xaggiisa u orodo markastood dhinaca makhluuqa u orodo oo tulaaye iyo aad tolbeelaya aad gurto ood iisoo gurmada ay tiraahdo ood qaraabo iyo ehel iyo qaraabo la xidhiidho arrimahaagu hore uma xalismaan laakiin markastood allah subxaanahu watacaala aad gacmaha hoos dhigatood isaga u dhib sheegato arrinkaagu markiiba u xalismayaa astaanta ugu horraysa isku garanaysana waxa weeyaan murugo kastoo ku haysata iyo culays kastoo ku haysta ugu horrayn qalbigaaga xasilaya waad degaysa markaas ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa inuu orodno isagaa ilaahay subxaanahu watacaala arrimaheenna inoo dabaraya waayo innaga laynama farin adduunyadan laakiin allah wuxuu ina faray cibaadadiisa marka walaalayaal ha la dikriyo oo ha la cibaadaysto dikriyada marka la tiro badinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni tirooyin ka soo arooray waa saddex bay ka soo aroortay 7 way ka soo aroortay 3 iyo 30 way ka soo aroortay 7 way ka soo aroortay 100 saas awgeed walaalayaal dikriyada marka la tiro badinayo ee dikriyada la tiro badinayo macnaheedu waxa weeyaan ijtihaad dadka dadaala ee ilaahay subxaanahu watacaala uu waafajiyo dadka dadaala ee ilaahay subxaanahu watacaala uu waafajiyo inay in badan dikriyaan waxyaabaha ay kala kulmaan waa cajiib waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala qaarkood uu la kolonsiiyo waa aad waxyaabo wax ku qaadasho leh marka insha allahu tacaala dad baa ilaahay tusaa malaa'igta tusaalahan suuratu ikhlaas 2 habeen ka hor mid ka mida walaalaha ahlu khayrka ah ee aynu khayrka ku tuhmayno ayaa waxa uu akhriyaa suuratu ikhlaas 1,000 jeer marka qaarkoodna 1,002 jeer marka allah subxaanahu watacaala waxa uu tusay malaa'igtii oo u imanaysa ayuu allah subxaanahu watacaala uu tusay allahumma salli ala maxamed malaa'igtii ayaa waxa ay kala sheekaysteen kala hadleen muhiimadda ay leedahay in qofku uu laasimo hal dikri yacni dikriyada waad
tiro badsan kartaa oo digri kasta tiro kooban ka akhrisan kartaa laakiin tiro digri aad inta badan akhrido waa in uu jiro oo aad leedahay digri aad mar walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanayso waayo digri kastaaba Ilaahay uu kugu xidhaya marka haddaad saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam ka dhigato Ilaahay ku waafajiyo haddii istighfaarta Ilaahay ku waafajiyo haddii tawxiidka laa ilaaha illa Ilaahay ku waafajiyo haddii xaqooda Ilaahay ku waafajiyo oo yacni oo tiro badan ka akhrido aad bay u fiicantahay inaad hal digri aad u laasimto digri kastoo aad jeclaatana aad tiro kooban ka akhrisato sida yacni 70 oo kale aad ka akhrisato biidnillaahi tacaala marka walaalayaal suuratu ikhlaas siduu nabiga calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay qofku haddii uu 10 jeer ama 11 ka akhriyo beyt ama guri baa looga dhisayaa maxay jannada waa suuradda ka waramaysa Allah subhanahu wa ta'ala sifadiisa suurad Ilaahay subhanahu wa ta'ala adoonka jeclaada uu Ilaahayna jeclaanayo subhanahu wa ta'ala marka walaalayaal wad la socotaan qisada asxaabigii ku tujin jiray asxaabta ee ay la yaabeen asxaabtu markii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay u sheegeen in gaarsiin nabigu uu weydiiyay asxaabigaasi maxaad ugu celcelisaa suuratu ikhlaas ee uu asxaabiga sheegay waan jecelahay ee uu nabiguna calayhi salaatu wasalaam ku yiri Ilaahayna wuxuu ku jecel yahay sida aad u jeclaatay suuratu ikhlaas marka walaalayaal ذكر كسته قرآن كسته wanaag kasta oo aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala xuskiisa uu ku jiro oo aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawaanayso waa khayr inta aad ku sugan tahay marka adkaarta hal laasimo hal lagu dadaalo hal laga mashquulo walaalayaal adduunyada iyo waxyaabahan kale maala yacniga iyo arrimaha sunnada biidnillaahi ta'ala hal laga mashquulo walaalayaal hal lagu dadaalo salaada haddaad doonayso noloshaadu inay kuu saxsanaato haddaad doonayso noloshaadu inay kuu toosto haddaad doonayso qorshayaasha noloshaadu inay kuu hagaagaan waxaad ka barataa sunnada Ilaahay koonkan u dhigay bal 5 salaadood uun eeg 5 salaadood qofka laasima ee haddii uu weliba nin yahay jamaca markuu ilaaliyo ee uu salaadaha laasimo noloshiisa oo dhan way hagaagaysaa marka salaada waqtigan Ramadaanta aynu ku jirno waa bisha ugu qiimaha badan ee qofku jadwalkiisa nololeed sixi karo marka walaalayaal waqtiyada salaada hal ilaaliyo اللهم صل على محمد دعاء يا الله برقة هلا يعني هلا بديو نفتاد ودعاء أهلكاga ودعاء مسلمين ودعاء دعاء هاسكو قاريين اللهم صل على محمد وحي الشر إلهي كما قال خير إلهي سبحانه وتعالى ويديسو إن شاء الله تعالى ولا ليال أين الدداله سيدي أين أهل الله إن رالي أهشه إلهي سبحانه وتعالى waxa aynu filaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo aynu ka rajaynaynaa inuu nala kulmiyo habeenka aadka u qiimaha badan ee Laylatul Qadriga oo u dhigma 83 sano iyo 4 bilood habeenkaas walaalayaal si aynu ugu dadaalno ma sha Allah hala sii bilaabo sidoo kale dikrida lagu darsado akhrinta suuratul qadr inna ansalnahu fi Laylatul Qadri suuradaasi lagu sii darsado oo akhriskeeda hala sii badiyo biidnillaahi ta'ala iyadana sidoo kale quraanka kariimka guud ahaan si fiican loo wada akhriyo qof walba intuu ka garanayo ha ka akhriyo ilaahina subhanahu wa ta'ala walaalayaal aynu arrimaheena u dhiibanno ilaahi subhanahu wa ta'ala ayay nagu filan bishan waa bishii wax la bixida iyo sadaqada iyo khayrka sadaqada hal laasimo halan laga qayb qaato barnaamijka Ramadaanta si fiican bi barnaamijku u socdaa walaalo si fiican uga qayb qaadanayaan walaalo badan oo aad iyo aad ka mahad sheeganaya jira oo ku soo noqnoqday waxaad arkaysaa khayrka hadduu Ilaahay ka aqbalo waxa lagu gartaa tusaalahan haddaad amal khayr samayso ama sadaqa Allah baxdo inuu Ilaahay ka aqbalo waxaad ku garanaysaa amalkii baad ku celcelin doontaa amal kasta oo khayr aad samayso laga aqbalo joogtayn buu leeyahay joogtayn ayuu leeyahay marka walaalayaal aynu mar walba Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa aynu u dhaqaaqno Ilaahay aynu u dhawaano subhanahu wa ta'ala aynu ka mashquulno waxyaabaha kale oo dhan bishana aad iyo aad kuntiga dhiisha hal iskaga dhigo aad ha loo dadaalo insha Allah ta'ala ilaahayna waxaanu ka baryeena khayr dhamaantii waxaanu Allah subhanahu wa ta'ala ka magan galnaa shar dhamaantii walaalayaal barnaamijkeena waa isxasuusin guud walaalayaal in aad iyo aad ugu dadaalno sidaana nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu salaam jirnay ha lagu salaamo asalaatu wasalaam alayka ya sayyidi ya rasuulullah asalaatu wasalaam alayka ya sayyidi ya habibullah 5 jeer 10 jeer intii ka badan Ilaahay ku karsiyo hana la laasimo habeenka jimcaha saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam oo digriga saliga nabiga aad ha loo badiyo waqtiyadan qaaliga ah biidnillaahi ta'ala
waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ruuxdiisu ilaahay ku soo celinayaa waanu ina maqlaya waanu inoo jawaabayaa malaa'igtii ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaar yeelay saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam inay qaadaan oo ilaahay gaadhsiiyaan qaarkood inay qaadaan oo ay nebiga gaadhsiiyaan calayhi salaatu wasalaam yacni shaqooyinka tirada badan ee socda markaad saliga nebiga aad ku jirto ee tooska ah waxa weeyaan malaa'igtii way kula joogaan ama dareen ama ha dareemin ama arag ama ha arkin mar walbo aad digriga ku jirto malaa'igta ilaahayna way kula joogaan marka walaalayaal aynu aad iyo aad isu maxaan ku idhaa ilaalino markaynu digriyeyno aynu yacni khushuuc la nimaadno indhaha qofku hadduu isku qaban karo aad bu fiican tahay jawi degan inaad ku digrida aad bu fiican tahay markaad mashquulka tahayna sidaad karto adoo jiifa adoo socda adoo yacni shaqaynaya intaba xuska ilaahay subxaana wa tacaala carabkeenna ha ku sugnaado inta digriga ilaahay aynu haysano khayr weyn agteena ayuu yaalaa laakiin mar kasta waynu ka mashquulno ayaa aynu yacni dhibaatadii u dhowaanaynaa marka walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala khayr dhammaantii baan weydiisanaynaa barnaamijka intaasaan kusoo koobi doonaa tan iyo intaynu barnaamijka kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa astawdicukum allah alladii laa tadiicu wadaa'icahu fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله